horta ilaahay run kama dhigaan qof dhintana sooma laabto midda koowaad laakiin waxa qarraacan igu noqotay oon aad uga naxay oo aan aad uga xumaaday waxa waaye xalay inay meesheeda joogto ee weliba garabkeyga ka ciyaaraysay maantana la oofsaday bal fiiriya gabadha qof walbaba camalkiisu aakhira la tagaa yees waa run laakiin waxaa jirto waxyaabo qaar isla markiiba maxaa iisoo sawirmay anigii kama marni meeshii saymaana anigaa ka daran intaasoo qofood anay ii imaadeen fiidiyoyada xalay ugu dambeeyaa soo geliyey isla fiidiyooga markaan soo gelina waa ka saaraa heesayga barefada geliyey waxawaaye waa wada tirtiray wixii aan aniga hees qaaday ay ku jira youtube-kayga waan iska tirtiray walba wax badan kuma jiran youtube-ka raagaa kusoo haray youtube-ka raagan iga tirtir ayaan dhaha waa kaa tirtiraa ugu yiri waxaan kaloo rabaa aniga waan naxay waxaan ku naxay awalba fanka waa ma rabin habeen kasta waan cabsadaa habeen kasta waxaan ka baqaa niyahow waxaan fahmi waaya habeenkii maalinta dadku isku feelin maahan aniga habeenkii maalintii sidaan caadi u ahay habeenkii waa ka cabsi badanahay marka si kastaba ha ahaatee waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesayga ugu jiraan qofkou doona ha ahaado qofkii fiidiyogeygaan arkay bataatan inuu fiidiyogeyga heesteyda uusan youtube-kiisa ku jirin meel kasta oo ku isticmaalo iyo haddii kaleba baliis waxaa idin ka codsanaya walaashin idin ka codsanaysaa inaa bataatan iga tirtirtaan heesayga oo dhan maadaama aniga aan fankii go-aankeyga ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray codsi ayaan wataa qofkii inta fiidiyogeygaan arko oo youtube-kiisa heesteyda ee kasii isticmaalo ama sii gashto aakhiriyo adduun ma cafiniyo ilaahay baa loo toobadkeelaa ilaahay waa u toobadkeelay hees dambana leeguma oga maalin walbaba waxaan isdhahaya israaqadana ilaah baa baxsho fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay markastana aan ka baryi jiray aan dhihi jiray ilaahayo israaqad meel kaleeta iga sii maantay in aan bataatan aan fankeyga soo gabangabeeyey dambana aanan rabin inaan kusoo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay teeda ha ii rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalamay muddo badan aan dagaalamaynay muddada aan dagaalamaynay waxa waaye uu iga xoog badnaa jiray because wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helaayo meelaha fanaannimada ah wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helaayo lacagtaan u baahdo fanaan haddaan ahay oo fanka ah ku jiro ma fahanteen laakiin marka maskaxdeyda iyo ilaahayga aan niideyda gashta israaqada ilaahay qubba meel ku siiya intaan hadduu ilaahay ugu soo siinaayay maanta niideyda waxaa ku jirta inuu meel kale ilaahay iga siinaayo adinkaan i daawanayo hadda raydnaa u daawanayo ayaa isiinaya lacag ma fahanteen every video aa soo geliya aad daawatiin lacag ku helaaya fanka marka muxuu ii taraayaa nothing wuxuu ii taraaya mala business yaraan samaysta ilaahay i barakeeyo waxyaabo badanaa samaysanayaa fan ma rabo qofkii heesteyda shalay markaan soo galaayay waxaa ii geysatay shaydaannimo iyo caqli yaro maanta damoor aad sii weyneynaysid damoor aad sii xumeynaysid waa laga fiican yahay waxaa fiican qofku markasta uu sii weynaanaa garaadkiisa sii badanaayo godkana waad usii dhawaanaysaa dad baa waxay isleeyihin dhallinyaronimada markaad weynaato ka tabadkeen yaa ku og inaad gaaraysid markaa weynaato aniga waxaa idinka baryayaa laba wax waxa waaye midda koowaad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qayr qaban fanka inuu isiiyo oo aanad dib dambe ugu soo laaban shaydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno fanaannimada kaliya shaydaan maa waxyaaba badanaa shaydaannimada shaydaanku waa aragteen qofaan dambi gelin ma jiro hadda ka bacdina dambi ma gelaayo ma dhahaayo waan gelayaa bilaaadana ah laakiin mid ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba allah iiga dhigo midda labaad inaa fiidiyogeyga u sheergaraysaan qof walba oo youtube-kiisa heesteeda ku jirtana aad rabood ku qabataan hadduu u ka bixi waayo xitaa allah ka dhigay youtube-ka raaga runtaa idiin sheegaya hadduu ka bixi waayo qofkii aakhiriya adduunna macfinaayo qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo kasii raadsado oo israaqad ka raadsado oo fiyuus ka raadsado ma cafinaayo
anigan hadda soo idinlama waxaynahay waxa waliba iigu daran halkan waxaan rabaa fariin inaan ugu diro Daahir Cali Sow Daahir Cabdulla Cali Sow heesay YouTube-kii ku jiro bataata waana YouTube-ka ku jiro waana bataata ka saartaa hadda ka horna aanoo fanka ka bixin oo fanaanimada markaan intaana ka bixin heesii aan madaxayga qaawnaayeen ayaan fariina u qoray waxaan ku yiri iga saar heesaa bataata madaxayga qaawan yahay midda kaleeto qof kasta oo hees aan leeyahay arko inta jecel wanaagayga jecel maanta ku faraxsan wadada aan qaaday islaamnimadu ay ku jirto waxaan ka codsanayaa bataatan qofka iga saari waa inaad iga report gareysaan waliba maahane waliba inaad sida aan u cafinayni inaad adikuna u habaartaan oo igu habaartaan inuu waxayga xoog haduu ku haystana xoog Allah ka qaado haddaba waa idin sheegay shalay fanaanimada markaa ku soo galay qof aan la sheergareeyay ama dhahay ma jirto maanta fanaanimadeeda aan soo galay kana sameeyna inta idima aqoon man adikna ima aqoon laakiin maanta way taqaaniin qof kasta oo YouTube-kiisa heesteeda ku jirto waxaan ka codsanayaa inuu ka saaro ama mid hore haato ama mid dambe haato ama waxa haato fiidiyoda kale oo hadalka qofka raba ha qaato fiidiyo hadlay dib ma laha laakiin fiidiyo hees ay muusiga ku jirto oo heesiyo raali kamihi fankan waa iska dhaafay ilaahayna waxaan ka baryayaa mar dambe inuu igu celin israaqada ka heli jirna meel fiican ilaahay kale iga siiyo inta codsi iga tahay ma fahanteen aniga iyo shaydaan iyo fisqi iyo dadka meelaha aan soo warmeelahan kiisa intaas oo qofooda madaxiga ku imaanay lacag ku soo galaayeen waan wada caweynayni waa wada farxayna laakiin waxaan iskugu imaanayna ma ahayn wax maxaa la yiraahdaa wanaagsan waxaan sameyn karnaa meelaha waa iskugu imaan karnaa adoon lacag ka bixin adoon lacag maxaan ku raadaa dhiibeen adoon heesayn adoon ciyaarayn meelaha iskugu imaan karnaa waa jirta ku wada sheekaysan karnaa ku wada qaraaxaysan karnaa ku wada farxi karnaa oo walaalahayga aan ku wada kulmi karnaa ku wada sheekaysan karnaa dad islaamana dad walaalaanay laakiin no more martaba ma dhacayso mana dhici doonto inaan meel dambe ka heeso ilaahayna ka maga galay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sidii fanaaniinta hore inta fanka ka bixi ku soo laabtay inaanan noqon niyadeedana maanta kuma jirto mana geli doono shaydaanka inta ilaahayna ha iga haay ii soo duceeyo bedel khayr qaba ayaan rabaa fanaaniinta kale ee ku jirana waxaan u sheegayaa maanta waa noo shahay biri waa dhimanaysaa marka dhimatidna koo su'aalaha lagu weydiinaya kamid tahay heesaa waa ka toobadkeenay fanaan kasta ku jirto wallahi niis aniga waa qof kasta oo xumaan ku jiro wuxuu isku tala jiraa inuu maalin ka toobadkeen doono laakiin maalinta ay ku gaarsiinaad garantiin ugu heesatiin wa salaamantiin miskiinta ina Axmed aheed fiidiyogeed waa inaad ii share gareysaan waa inaad tustaan dadka heesayga daawadana waxaad ka codsiga ta kuwaas kuwa heesayga daawad codsiga ta waxa idin leeyahay ha daawanin oo idin baryaaya kuwa ay ugu jiraan haddaad iga saari weyso waa kuma cafinaa ani waxaas waa iska daay bataatan waa iska daay waxaas waana salaamantihiin waxa waaye israaqadna khayr qabta oo ka fiican ilaahay isahlo YouTube-kaas anoo saan u asturan hadaa ii soo fadhiisto oo maxaan ku raadii daawatiin waa lacag xalaal ah oo sida ila tahay hadaan qof isku direen dad caynin dad xumaynin dad xumaan ka sheekinin kuleeto sidaas ayaan malaynaa culamadana waa weydiin doonaa insha Allah waa mahadsantiin jazakallahu khayr ilaahay waxaan ka baryayaa qof walbo aniga inuu ilaahay sida wadada wanaagsan wada tuso waxyaabaha badan aan iska dayno dambigu ma aha heesa kaliya waxyaabo badan ayaa jiro aniga businesskayga ilaahay inuu ii barakeeyo YouTube-kaygaas waxaan ku shaqeysto oo aan xumaan idin soo gelin oo wax xun hadda adigu aragtiin waxaad igu tiraadaan qaali waxaas waa wax xun adikoon caayin oo xumaan igu soo gudbin message ahaan waxaad igu soo gudbisiin walaal waxaas ma fiicna qaali iska daa hadda dhar qaawan xirta ii sheega waxaad igu tiraan dharkaas ma fiicno iska daa hadda aragtiin wax xun aan gadaayo waxaas kulleeyta maanta kuma tali jirina wax xun gado laakiin walaalahay ayaa tihiin walaashiin ayaan ahay maanta aniga kale dambiga waxa waaye idin leeyma qoraayo dadka ila daawanay wax xun aan soo sheergareynaa ee ii sheergareynaa ila gareynayaan way ugu la jiraan dadka heesaa dhageystaa kuwa qaado waa seema leeyahay marka adinkana waxa isku booraarinaya waxyaabaha xun aad sheergareynaysan iyo heesaa inaad iska dayno fanaaniinta gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta Soomaaliyeedna waxa leeyahay fanku waxaa laga gaara malaha lacagta adduunka dadka heshay xitaa meelna kuma gaartid been idiima sheegay intaas oo sanaan ku jiro fanka maalinna wax aan ka faa'iiday
معناها العق ما أنت أنا أدعوني أتوحبو حرني ساعد أنت سميني ساعد أنت جيني أنا محنس ديجري إن لعقتان فم الكاجي أدي أو باهن إسك استعماله محن سميسته لكن ما أنت يوتيوب كي لعكي لكرا إن برامج شديد بسنس كي كلا أن سميسته إلهي بركيه أدينك أيا العكسية أديك أيا دنك استجرب كستيجتاي فناني ماذا هيست تقول داون جفتين أما إن مالها أنك هيست جرنا وحوا يوتيوب كي كان كيلايا قلبت حق عادي جر أنت إذا كجش كينايا فهمتي هدات كلن كي وحيستين مالها نسكوكو مانينا أنك وذا الشيكين كوذا فرح كرنا وأنا وقضت عين كوذا الشيكين سكرنا أنا قضت مساكين تصوح وقبلهن يوحيابو بدن يدين تنسى أور مرلين إنن كو تلاجرنو dad baa waxay leeyihiin qaali hadda sheeqay noqonaysaa kan waaye dad waxa sheeqnimada lagu sheegayo waa adiga afkaaga laga amaan helo salaadaada dukato gurigaaga joogo reerkaaga dhaqdo waa intaas ma ahan inaan aniga maanta aan dhaho dugsi hebelan galay hadaan galana wax xun ma ahan laakiin muhiimadu waxa waaye fankiya waxa noo sii dheer wallahi inaan bidin sheegan xan qof kasta uu sheegaya maanta meel tago waxaan tama qof baan xamanay qof walba أنا هبلاي هبل دينين قف كستون أفكيجا مجلس كسوق هذا أسكي عفي أنا عفي سايقتين إلهي إنه وحن كبرية وحن إنه إلهي قدره وأنا نقض قف أسك عادي وذيك عمله مدك لو حكى لو ذيك أصلا يا ميل هذا إسكار إنه فناد قال لذن يلي دين ما قاعد وقال لذن واحد يجي كرتين قال لذن واحد يجي كرتين قال أحمد لكن فناد إن قلدن waxay ka cusubtay in shucuubta Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin in gabi ahaan ay isaga baxday fankii sabab jira awgeed in aragtay runtii adduunka wuxuu yahay markii shilto saaxiibadeeda ama qaar faniskeeda kamid aha ay ku geeriyoodeen shil ayadoona sheegtay in muddaha inay ku taameysay inay basaaxadaasi isiga halkaasi iskaga joojiso oo fanka idil ahaanba ay ka bacdahay yeeshay qadarta Alle shalayta ay ku soo beegmatay oo ay xali shaaca ka qaaday muuqaalkaasi aad daawanayseen ayaa cadeyn waxayna ka cusubtay dadiyowga youtuberada ee ka shaqeeya arimooyinkaasi ee heeseeda soo geliya iyo kuwii hore waxay sheegtay in dhamaanba ay halkaasi ka tirtiraan oo ay sidan rally ka ahayn waxayna ugu baaqday Soomaalida meel kasta oo joogaan in arintaasi ay qataan in ka toobakentay oo Allah subhanahu wa ta'ala ay ugu toobakentay waxa rajaynaynaa khayr in insha Allah dadkaasi qaadan doonaan hadallada wanaagsan ee ku hadashay